waxaa si habsami leh uga socda dhul beereedka degmooyinka Tuli Guuleed iyo Awbare falashada beeraha iyo sidoo kale hirgelinta barnaamijka wax soo saarka ee dalag iyo daryeel. Barnaamijkan oo guud ahaan deegaanka laga wado ayaa looga dan leeyahay in lagaga maarmo cunooyinka deegaanka uga yimaada taabadalkiina la sameeyo wax soo saar dalagga noocyadiisa kala duwan ah. Mas'uuliyiin ay hogaaminayeen afhayeenka golaha xildhibaanada deegaanka Marwaayaan Cabdi, madaxa xisbiga barwaaqe ee Soomaalida Injineer Maxamed Shaale iyo wasiirka xafiiska beeraha deegaanka Soomaalida Dr. Cabdiqaadir Iimaan ayaa soo kormeeray dhul beereedkan degmooyinka Tuli Guuleed iyo Awbare ee laga fuliyay barnaamijka wax soo saarka ee dalagga daryeel. Kormeerkoodan ayaa ku qotoma u kurgalida habsami socodka barnaamijka dalagga daryeel maadaama waqtigan lagu guda jiro falashada beeraha. wasiirka xafiiska beeraha ee deegaanka Soomaalida ayaa sheegay in degmooyinkan qoondadii loo qabtay ee wax soo saarka qamadiga ay guul weyn ka gaadheen walow ay soo wajaheen caqabado kala duwan. sanadkan waxa qorshaysnaa ilaa 170 hektaar 170 kun oo hektaar qamadi in la beero. labadan degmana 100 kun in ka badan bay hayeen inay beeraan. marka 110 kun wax ku dhow ayaa labadan degmo hadda la beeray. xaaladuna uu fiican yahay dhulka qamadiga intiisa badna waa la beeray. inkastoo meelaha qaarkood roobku yar yahay. hadduu roobku sii fiicnaado waxaan filaynaa marka in qorshii labadan degmo qamadiga 100% ay hirgalaan ayaan filaynaa. inkastoo sanadkan labadii roob la helay roobka helana aad buu u yaraa. kan laftigooda meelaha qaarkood uu yar yahay laakiin labadan degmo intaan ilaa arkayna way fiican yihiin. ilaa wax ka baraynaa marka inuu bishan iyo inta ka hadhay roob ilaahay na siiyo. hadii roobkaan helo marka rajo badan oo fiican baa meeshan jirta. beeraleyda caqabado badan baa jira. abuurka mashiinada xulka ku filan ma helaan. wixii aan heli karin in ka soo siinay laakiin dee kuma filan. shidaalka hadda in ka soo la xaliyay marka hore shidaalka dib baa ka jirtay. hadda shidaalka waa la xaliyay oo shidaalka way helaan beeraleyda dhibka ma jirto. bariga hore dibi iyo waxay ku qodan jireen hadda cagafun baa lagu qodaa. cagaftiina iyadna kuma filan. marka caqabado noocaas uu jira. laakiin cagaftii sanadkan cagafyo badan baa la keenay. sanadkan waa la keenay. xagga cagafyadu ay soo yeeranaysaa. laakiin marka cagaftii soo baatay iyadna dhibka ay imanaysaa weeyaan. dibidii meesha lagu qoday ka sii baxaysa. marka dhibaatooyin noocaas ayaa jira. wasiirka ayaa intaasi ku daray in xafiiska beeraha ee deegaanku uu dhinacyo badan ka taageeray beeraleydan ku hawlan wax soo saarka dalagga noocyadiisa kala duwan. beeraleydan anagu waxyaalaan siinay waxa ka mid ah abuurka waan siinaa. oo sanadkan deegaanka abuur ilaa iyo 180 milyan loo soo iibiyo beeraleyda loo qaybiyay. inkastoo aad garan karayso wadankeena deegaankeena aad u balaaran yahayo intay gaarayso 100% ma gaarayso. marka abuurkii waa la siiyay. cagafyadii deegaanka hadda beeraleydu way helaan oo cid iibsan karaysa cagafyada deegaanka helayaan. mashruuci BSMP oo kale isaga laftigiisu kabaya jiro oo mararka qaarkood lacagtay qaataan beertii bay wax ka qodan karaan waxba u qaban karaan. kaalmo badan baa shacabka dawladdu ay siisay oo noocyada kala duwan. dhankiisana gudoomiyaha degmada Tuli Guuleed ayaa sheegay in degmada oo qoonto ahaan ku soo hagaagtay inay beeraan dhul dhan 100 kun oo hektaar ay u hirgashay ilaa hadda inay beeraan 360 kun oo hektaar. Tuli Guuleed ka mid ah degmooyinka qoontada ugu weyn ka qaatay deegaanka xaggii dalagga daryeel oo ilaa 100 kun oo hektaar dhul ah inay beeraan qoonto ahaan u qaatay. haddana ilaa diyaar galowgoodu marayo ilaa 380 kun oo hektaar in dhul ah in mataqaanaa la diyaariyay lana beeray. dhinaca siidka xukuumadda runtii waxay soo gaarsay ilaa dhowr 10 kun oo kintaal oo siidka kala duwan ay soo gaarsiiyeen. soo kale iskaashatooyinkii looga faa'iideynayay dhinacan cagafyadana ilaa 6 iskaashato oo cagafyadooda la soo wareegay ayaa ilaa hadda inoo maraysa. in badan ay ku jiraan processka in waqti dhow soo qaataan cagafyadina rajinino. marka guud ahaan baaxadda dhulka Tuli Guuleed la beeri karo waa 225 kun oo hektaar. laakiin colaadda awgeed santarada qaarkood maadaama la gaari karin hadda waxaan ku daalnaa inaan 100kii aan qaadanay degmo ahaan inaan gaarno ma ku daalnaa hadii la raado. kule si la arkana maamulka soo arkayna shacabku si fiican bay u diyaar garoon dhinacooga. waqtigana waqti ugu dambeysay fajaaska beeraha lagu jira oo faraha laga sii qaadaya hadda haddii toleenta wixii ka dambeysay waa raxmad ilaahay oo sugnoon. insha Allah waxaan rajaynaynaa haddii raxmadda Alle la helo in mataqaanay damanaqadka cuntada degmada Tuli Guuleed kor u soo kici doonayaan rajaynaa hadii la raado. guud ahaan barnaamijka dalagga daryeel oo xukuumadda deegaanku dadaal badan gelisay hirgelintiisa ayaa wax weyn ka bedeli doona nolosha bulshada ku dhaqan deegaanka oo wal hore ku tirsanaan jiray wax soo saarka dibadda uga yimaada deegaanka.